اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan maanta halkan ka baranaynaa sida loo isticmaalo netcad iyo netcad wuxuu yahay. netcad waa shaqo dhex marta laba computer oo protocolkoodu yahay ama UDP data user data broker data datagram protocol UTC waa TCP oo transmission control protocol labadaba ku shaqeynaya. netcadka marka waa laba computer macluumaad dhex marayo kuwaasoo ama kala network ka noqdeena ama hal network ka noqdeena inta badan ay u isticmaalaan ciidamada laamaha agensiga sirdoonka in warbixin guud iska gudbiyo laba ruux oo laba computer ka isticmaalaysa. sidii nin walba waxay sameynayaan chatting u dhaxeeyo ma aha video gudbayaan sawirro laakiin waxa lagu sameynayaa tasma gaari doona jilaa meedin waxa la sameynaa marka chatting si warbixinta qoraal isku dhaafsado wixii dhacay laba computer anagoo isticmaalayno baa isla eegaynaa maadaama hadda aan joogno computer hadda isla eegno sida chatting u dhex marayo labada ruux ama noqdana hay'adda intelligence-ga sirdoonka militariga booliska qofka warba noqdo ama laba ruux oo hal shay ka dhex marayso caado saaxiibo oo sheekaysanaya noqdo computerka u sheekaysanaya labadan arkayna marka chatting soo dhex marayo iyo warbixin soo dhaafsanaya warbixintooda. waxaan tageynaa marka waxaan isla eegaynaa waxaan CMD marka waxaan fiirinayaa IP address-ka inaan hubino IP computer IP config anaga IP-ga isticmaalayna waa kana maxaan u qoran inta IP-ga anaga ka saaran oo highlight-ka noo saaran waxa kale oo isticmaali karnaa halkaan tageynaa si aan IP address-ka ogaano computer-ka noo haysto waa kana marka IP address-ka sayaan halkan nagu jira marka ka soconaynaa waxaan aadaynaa marka CLS iga nadiif aan leeyahay haddii ma baahnin CLS waxaan kacinaynaa Linux-ka intaan Linux soo kacin waxaan isticmaalaynaa inaan computer-ka inagoo Windows 10 isticmaalayno aan leenahay nasoo folder name-kii desktop waxaan rabnaa inaan kan oo inta noo yaalo oo netcad-ka aan isticmaalayno waa kana netcad-ka software-kiisa halkan noo yaala NC netcad laga soo gaabiyo NC inta noo qoran tahay kaasaan rabnaa inaan software-kaas isticmaalno waxaan leenahay marka NC shaashada noo yaala ilaa waxaan soo magacaabno marka hore desktop inaan wixii noo yaala aan isticmaalno waxaan leenahay minus VLB oo loo soo gaabiyey Verbos listening port waxaan leenahay portka noo magacaabo oo 1200 waa 1200 portkaas hadda isticmaalaynaa number 1 hadda wuxuu noo kacsayaa waa listen any waxaan rabnaa marka in warbixinta hadda wuxuu diyaar u yahay in warbixin lagu diro waxaan isticmaalaynaa Linux marka Linux operating system ka madaxbannaan labada operating system is leeyihiin laakiin Microsoft iyo shirkadda security kala isticmaala qoon shirkadda security kale waa ka madaxbannaan midkale waa Windows taqaana waxa kale Microsoft marka waxaan tageynaa halkan waxaan leenahay marka noo soo magacaabo computer-kii ilaa IP address-kiisa NC -VV marka la joogo waxaan leenahay IP address-ka noo wac marka isticmaalaynay 106 waxaan sii magacaabanayna portkii aan xagga soo magacaabanay ilaa waxay isku aqoonsanayaan waa portkii gudkaas waxaan leenahay dhag markaasina waa noo diyaarsan automatically waxaa noo yimid connection maxaa ka yimid connection to IP address from desktop ana portkaas oo lagu soo magacaabay Linux xogtaas dhama martaa marka desktop-ka inaan from desktop marka ku leeyahay waa kana connection marka connection ay taagan labada connection ka dhexmaray waxaan leenahay marka kan wuxuu leeyahay unknown oo open laakiin uu furan yahay waa diyaarsan inuu shaqo qabto waxaan leenahay marka warbixin noo soo dir halkan waxaan leenahay marka Soomaaliya waxaa hadda xaggan joognaa isla ogaana marka inaan isla aragnaa Windows Soomaaliya waxaa
jira jamhuuriyad هذا waxaan ku soo qoray ilaa waxaan isticmaalaa waa window 10kii oo aad arkaysaan waxaan ka diray marka qoraal Soomaaliya waxa ka jira jamhuuriyad cadaalad ah haddaan ilaa line kaskan fiiriyo inta waxaan ku soo qormay Soomaaliya waxa ka jira jamhuuriyad cadaalad waxaan leeyahay marka waxaan leenahay waxaan kasoo diray line kiska waxaan kasoo iray awla Soomaaliya waxa ka jiray jamhuuriyadda marka jaatan waa sheeko istammarasi wax la isku dhaafsanaya xoog la isku dhaafsanaya ana waxay mogto Soomaaliya waxay leedahay ciidan wanaagsan dhibicida Afrika jamhuuriyadda Soomaaliya awla halkaan ugu laabanayna marka window joogno muxuu intuu soo qoraalka waxaan kasoo diray muxuu waxaan leenahay ciidamo ugu wanaagsan Afrika ilaa xageen kasoo diray qoraalkaas waxaan kasoo diray line kiska kasoo diray operating system waxa shaqada qabanaa marka netkaadka wax barnaamijka fududeynaya waa netkaas marka wax isticmaali kara qolooyinka warbixinada toos isla afsanay ana barnaamij aad ugu muhiimsan ciidamada waxaas leeyahay marka waxaan leeyahay Allah mustaana waxaan iska leeyahay marka iga soo jarba ma baahni waxaan boortaas wax ka xirnay automatic la sixiraya CLS نظيف waxaan rabaa marka desktop wax iyaalina halkan kansado desktop kan ilaa desktop kan waxa inta ugu qoran C waxaan isticmaalayaa user memory desktop inaan isticmaalayo halkan ka salax muuqato waxa ii dhaxgeysa Linux iska dhaxdiisa halkaas inaan ka salax muuqdaan rabaa halkan wixii aan ka soo diro halkaas xitaa halkan folderka aan ka sameeyo waa inuu halkaas folderka taga soo dirmay xagga marka waan arkayna sida loo dirayo asla fiirina marka Allah musta'aan waxaan leeyahay marka hore waa in windowga boortay ka soo arkayna waxaan leenahay NC marka aan waxaan isticmaalaynaa VLB waa verbose listening port waxaan leeyahay boortiga noogu magacaabo marka waxaan leeyahay ECMD.ext هذا ما هو automatically user كان هو بحي وحتى line كيسكو دحيس تغيا user كان إلا أنت انقارسيسان وليه window أو ليه حقاسو تغيا أصلا فيرن مارك حالا NC minus VV حنوع ذا أبي أدرسكي 06 بورتي نوع عمرك إلا ماشي شقة أنا حيك صعطوا بورتي ممكن هذا أسلاك مارك هذا connection كيمد automatically مكوا كنا حتى desktop منو يمد كنا مرك أرتان desktop وقصر رح مقضي الكان user name كي desktop كها automatically وحاول نتك كان الله استعمالي user name كي اللي هذاني هذا واحد كاستمر كان قصو ديره بيحنا كان كاستعماله غير هذا الكان حنا هي ديران لي وحش شاشة صارن أنو يكينا إلا شاشة هالكان يتعلق نيجا desktop كويندو هذا واحد أركض دونتان ان هذا markuu window ka yahay inta maxay u qoran folder magac ile uma qorno gaar ah oo ma saarno waxaan soo saaraynaa folder gaar ah waxaan leeyahay horta marka hore desktop wax saaran ii soo sheeg inta maxay soo saaran ka desktop
inuu isaaray dokumentyadan NC-dan iyo NC11 iyo waxa la isaaray yihiin Haj iyo Chrome drives iyo Python scripting iyo waxa dhan isaaray yihiin halkan ka muuqata waxaan rabaa inaan ka dhaco marka operating Linux ka dhexdiisa waxa la tir direct muxuu keenayaa Chrome drive-kii sawirada saarnaa kuwaan ahaa sawiradan waa sawirada kuwaan 66 iyo 143 iyo waxaan ku qoran yihiin waxaas dhan uu keenayaa markay baaritaan sawiradii uu keenay applicationada oo dokumentiyada uu keenay drive-kii engineer haajir documenti meesha qoran yahay inay jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dad documenti ku qoran tahay waxa dhan waxaad ka arkaysaa marka waa kana jamhuuriyadda federaalka engineer haajir application 2 wixii dhan baa ku qan kan shaashadan saaray dhamaan wuxuu keenay halkan صراحة مجنون ما المدى ليستي وانسي انكات بايثون سكريبت سكويل انجكشن تورنت بايت وحنا كان يكينا marka waxaan leeyahay marka folder halkan ka magacaabaya waxaan diray ilaa desktop ana halkan iimaanay ilaa shaashada uu halkan uu jooga shaqada halkan ka qabsan kara marka hadii aan rabo inaan qabsado shaqada desktop halkan ka isticmaalaya hadii ay computer kale qof kale uu leeyahay sidaas kale ogaan kartaa hadii aad khadka isticmaalayso boortiga mobile keenayso saan loo soconay in shaashadiisa u saaran markaasna aad tartiib waxaan leenahay marka waxa folderan ku sameysanahay shaashada folderkan halkan ka magacaabaya shaashada folderkan ka magacaabayno asla arkayna marka waxaan leenahay mk folderkaas aan leenahay waxaan leenahay daljir واحد يتعدى عيدما من دل جير صوم أم قرينا دل جير صوم عدد دائرة هذا فولدر كان وحقور ما شاشة آدية تماتيك هذا المركز عيري شاشة سارين مركز دل جير صوم وحصل أركينا شاشة ما هني قال فيري دل جير صوم واكن مركز دل جير صوم أفولدر حاجة مسمى دل جير صوم folder ka xaggan soo sameeyay waxaan ka soo sameeyay kale Linux-ki operating system-ki madax banaana ka soo dhex sameeyay hadana kana kullu darjisom Allahumma sta'ana ma tasifun inas la egno هذا كلام سلفيرنا مركها أدين تانو ترجلني وأنتن أو إنس لا يجنو إن شاشة تفضل درس من كرنا إنه معلومات لثلاثين كرة أحيانا وفيرنا ما أيدو كبدلن أيدو الاستعمال على إنك سبحان الله كنترول سي يقف صحيح مو واسك صحيح مرك وجب سي اوتوماتيكلي waxaan isticmaalaa marka NC wixii shaashadan ku isticmaalaya minus VLB aan leeyahay VLB ila portiga iyo magacaab portiga magacaabanaya markaan portiga magacaab waxaan leeyahay marka Allahumma sa'ana antu sifun aslaagna way kacsan waxa kale oo eegayna marka halkan waxaan ka arkayna IP address-ku midkan leeyahay marka Linux IP address-ka aan isleegayna waxaan leenahay window meesha asaga computer-ka isticmaala IF meesha asaga IP IF loo isticmaala kan config waxa ana IP address-ka leeyahay waa kana waxaan rabaa IP address-ka markan ka dhex magacaabo maadaama marka hore IP address-ka kala u lahaa computer-ka ama window iska lahaa IP address-ka ahaa 06 waxaan leeyahay marka ayadoo sida tan ah NC minus VV portiga isoo magacaabo waxa isoo magacaabaa IP address-ki u lahaa computer-ka si macluumaad ku soo dhaafsanayna arkaynaa waxaan leeyahay مغلقة وصل ديدين عنو ديتا ولي هاي
waa soo diiday data maxamed yiri wuxuu rabaa nmap iyo shaqo kale rabaa